sheekh waxaan ku weydiinayaa lacagta baarlamaanka uu qaato markay madaxweynaha dooranayaan xalaal miyaa mise xaaraam asxaabta ridwaanullaahi calayhim markii sayid abubakar ay dooranayeen maxay ku doorteen waxay ku doorteen nabiga ayuu god la galay markii la soo hijroonayay id humaa fil ghaari id yaquulu lisaaxibihi laa taxzan in allaha macana nabigu god la galay nabigu maalkiisa ku bixiyey nabigu saaxiib la ahaa sidaas nabiga markuu uu jiranaa asagu u dhiibay maxay ahayd salaada inuu dadka ka bixiyo maxaa lagu dooranaya marka shaqo uu qabtay laakiin hadda inaga maxaa la isku doortaa shaqo uu qabtay ma jirto waxaa la isku dooranaa un lacag kee haysto horta lacag badan laaluush mid ay soo weydiiyey wuxuu sheekh waxaan ku weydiinayaa lacagta baarlamaanka uu qaato markay madaxweynaha dooranayaan xalaal miyaa mise xaaraan markaas waxaan ku yidhi waa xaaraan qadcan ah markaasuu yidhi oo maxaa ninkan lacagtiisa asaga iska laha anna wuu isiiyey markaas waxaan ku yidhi markuu ku siinaayey bur maa ka iibisay mise beriisaa ka gaday muxuu kugu siiyey maxaad kaga bedelatay ilan wax la kala gataan dukaan markaad tagto soo alaab ma soo qaadanaysa aw baarlamaan markii aad lacag qaadanayso ku qaadanayso ninkan aan dooranayaa waxa aad kaga bedelatay lacagta uu ku siiyey maxay tahay hewaan qoray waan u codeeyey oo fag ayaan meel u siiyey kitaabada soo akhrid kitaabul buyuuci intaad furfurtaan kitaabul buyuuc beec wax la kala gato bal ka soo saara baabu shiraa'il aswaati codka waa la gadan karaa cid sheegaysa ma jirto lama haayo waa laaluush marka soomaali mugtay waxay doqon qufacda leeyahay meel laga gaarin ma taqaano dib uu ina haayaa meel uu inaga haystaan lama garanayo habka lagu imaanayo iyo waxa la sameynaayo ayaan sax ahayn marka in allaha la yuslih amal al-mufsidin fasaad wax ku dhisan ilaahay ma hagaajinayo in la hagaajiyo xagee ku xiran tahay waxay ku xiran tahay hadii dadka loo soo celin lahaa dadweynaha ay dhihi lahaayeen mugtay doorashadu waa marxaati oo waxaad marxaati ka kacaysa waxa leeyahay ruuxani waxaan marxaati ka ahay inuu yahay qofkii ugu mudnaa dhinaca markii laga eego ee wadanka samata bixin lahaa ee mas'uuliyadda ugu fiicnaa ayaan marxaati ka ahay way doorashadu taas waxa la isku ogaa ma aha in lacag lagu siiyay asaas ku dhacdo wa aqiimu shahadata lillahi soma inaga maxaan ku bedelnay wa aqiimu shahadata lil fulus qofkii lacag ku siiya leed shahaadada u qireen hal leedahay marka lillahi ma ah wa li ajli al fulus marka say ku hagaagaysaa marka yani diinteen waxayna sheegin male xukun iyo arrimii ku saabsan cid ilaahay doonuu siinayaa si ay u hagaagtana si wanaagsan oo sharaf leh oo dadku ay is ogol yihiin waxa lagu kala raadsado qofkii markaas loo arkaayo inuu yahay qofka ugu mudanna qofkaas la soo hormariyo sidaas ay ummaddu ku hagaagtaa caalamka oo dhanna maanta yani marxalad waxa ka socota yani ummaduhu inay dhismaayaan oo ummad walba xid habaysanayso inaga Soomaali ah waajib wuxuu inaga saaray wadankeena cid kale oo ka sugayna ma inuu xaliso inaga raba inaan xalisano diinteennana ku xalisanayna haday dadka diintu ku kala soonaan lahaayeen oo si tartiib ah si diintu sheegayso loo qaadan lahaa wax dhibab inama gaareen laakiin hadana saas ay tahay waa noolnahay alxamdulillah ummadeena Soomaaliyeed ilaahay diintaas inuu xifdiyay quraankaas aan akhrisanayno dugsiyadaas quraanka inoo furan khudbadaas aan tukanayno ducada aan ducaysanayno si la inoogu talagalay inaan u baaba'no waan u baabi'i weynay sidii loogu talagalay inaan diinta uga fogaano waan uga fogaa weynay waardiya adag Soomaali ilaa bariga isticmaalka mid Ingiriis wuxuu ka yeelay Soomaalida kaniisaday dhiseen wax soo gala la waayay culimadii bariga joogtay kaniisada yaa la gelin hatta iskoolaadka markii la bilaabayo oo isticmaalka uu bilaabayo iskoolaadka in la soo galo culimada way diidi jireen in iskoolka la galo waxay dhigi jireen iskoolkan wala idinku gaalaysiinayay ha isugu dhawaanina in badan way diideen yani shacbiga Soomaali waa shacab runtii la yaab leh midkii Ingiriiska intuu ka yaabay wuxuu Soomaalida waa la yaabayo hadayna diintu ku dhaqmaynin hatta waardiyay ka tahay diinta ma la soo dhawaan karo waxa fiican marka inaan waardiye bis ka ahayn waardiye uu fiican yahay inaan ku dhaqanno way fiican tahay marka intaan ku dhaqanno waardiyahan aan ka sii ahaano geeska Afrika hadii ayna Soomaali joogi lahayn yani mar hore geeska Afrika gaal noqon lahaa laakiin dadka la dhaqaajin waayay ilaa isticmaalka ilaa hadda oo muslimiinta waa Soomaali meel kale markii laga soo gali waayay inaga qorta loo isu gali waxa kala bixila marka waa inaga isbaabiineen marka sidii gaalada ay rabeen ayaan ka shaqeynaa ismana ogin marka Soomaali isdilaysa yay dan u tahay gaalada dan u tahay Soomaali heshiisana Soomaali dan u tahay ummadda islaamkana dan u tahay marka aan ka wada shaqeyno islaamku soo in amraayo wa'tasimu bihablillahi jamii'an wala tafarraqu soo ilaahina mala quraanki Soomaa inaan saa ku dadaalno saasan cizi iyo sharaf ku yeelanayna ilaahina inuu kaalmeeyo